كدغيسا راديو حريو wararka iyo warbixinadii u dambeeyay فالوين iyo barnaamijyo xiiso leh راديو حريو codka shacabka ogaadeenaya shirkii jaraa'id ay jaaliyada ogaadeenaya waddankaasi koonfur Afrika ku qabatay magaalada Johannesburg iyadoo oo kaashanaysay 8 lawyer oo kamid ah looyarada ugu caansan adduunka iyo waddankaasi koonfur Afrika ayaa waxa wariyaha raadiyo xuriyo noo joogay goobtaasi waa Cumar Jigjige waxa uu waraysi la yeeshay mid kamid ah 8daasi lawyer oo ah lawyerka uu cadcada dacwo oogidan lagu soo oogayay xukuumadda gumaysiga Itoobiya su'aalihii uu weydiiyay Cumar Jigjige lawyerkaasi ayaa waxa kamid ahaa had ma bilowdeen dacwadan wuxuuna lawyerkaasi ku jawaabay We compiled all the necessary information after consultation with the markaanu dhuuxnay annagoo la tashanayna dhibanayaasha ogaadeen cadaymana aan u helnay ku filan waxaanu isku habaynay dhammaanba waxyaabaha loo baahan yahay si dacwadan loo suurtageliyo loona gaarsiiyo xeer ilaalinta guud ee dalka koonfur Afrika iyo madaxa baarista dambiyada halista ah waxaa farxadii ah inaanu bishan 7deedii ku guulaysanay inaanu dacwadaasi gaarsiino meelaha aan kor ku xusay maxaa kugu dhaliyay inaad kiiskan qaato after consultation with the markaanu ka dhagaysanay xubnaha ogaadeen sheekooyin iyo dhacdooyin oo aanu dhab u aragnay tacadiga laga geystay ogaadeen waxaanu dareemay mas'uuliyadda naga saaran difaaca xuquuqda dadka waxaanu isu xil saaray sidii aanu dambiilayaashaas u horkeeni lahayn sharciga cadaaladana loo marin lahaa rajadaadu maxay tahay our hope in respect of this application is firstly to ask the South African Police Services to do a thorough investigation into the crime. rajadayada ku aadan dacwadan aanu gudbinay waa in koonfur Afrika baadho dacwado dagaal iyo xasuuq oo laga geystay waddanka ogaadeen xeer ilaaliyuhuna dacwad ku soo oogo dambiilayaashaasi haddii ay suurtageli weydo oo dambiilayaashaasi iman waayaan koonfur Afrikana waxaan sugaynaa in dawladdu dacwadan u gudbiso maxkamadda caalamiga ee dambiyada National Criminal Court for them to take the matter further, issue arrest warrants, and bring these perpetrators to justice. warka xiisihiisiyo xogta caalamka taala halka soo xulanaysa ee xogta aad ka helayso waa Radio Xurriyo xafiiska quraanka iyo xadiista rasuulka halka soo xiganaysa waa Radio Xurriyo ra'yiga xubnahan iyo xusuusta halgamaaga halka soo xiganaysa waa Radio Xurriyo